dekreeto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre maanta oo taariikhdu ay tahay 9 bisha Luulyo sanada 2018 waxaa xilkii wasiirnimada looga qaaday wasiirkii hore ee awqaafta iyo arrimaha diinta xildhibaan Xasan Mucallim Xuseen waxaa xilkaasi kusimo ka ahaan doona wasiiru dowlaha isla wasaaraddaasi Cabdixakiim Xasan Ibraahim Ashkir waa mahadsantihiin